السلام عليكم أصحاب سو دوادا waxaan in halkan ka sii amba qaadno cashirkeeni labaad cashirkan waxaan inaan ku qaadano select statement waa qayb ka mid ah barashadan SQL-ka markaba hadii aan fiirno select waa qalab ugu muhiimsan marka la joogo database-ka ama SQL-ka waana qaabka loo soo saaro xogta select waxay ku ogolaanaysaa in aan doorano xog gaar ah oo ku jirto database-ka waxaan ku xulan karnaa tiirar ama columns sida magaca da'da ama darajada sidoo kale tan waxaan gudiri karnaa shuruudo ama conditions anagoo sameynayno inaan xogta ka dhigno mid xiiso leh waxaan rabnaa wax walba inaan aragno qaab practical ah markana keen waxaan aadaynaa SQL-ka okay asxaabe marka u dambeysay waxaan joognay saashadan anagoo rabnay inaan halkan ka sii socono waxaan soo dejinay MySQL hadda waxaan rabnaa inaan gudaha u galno halkan waxaa ku dhufanaysaa kadibna waxaa gelinaysaa passwordkii markii aan create gareynayn oo aan abuurinay sidaan inuu ahayaan jeclahay adinkan passwordkiini markaas aad abuurteen gashta okay kadib shaashadan ku soo bixayso marka shaashadan ku soo bixayso saana kaga bilaabana maadaama ay ku cusub tahay okay markooda waxa u baahan tahay horta waxaan rabnaa inaan soo gelino jadwalkan ama table-kan ka kooban student ID-ga ardayga magaciisa age-ka iyo grade-ka ama natiijada uu haysto arday walba marka table-kana waxaan rabnaa inaan ku soo kicino SQL kadibna asiga aan falanqeyno maadaama casharanteena aan kaga hadlaynay data analyst-ga okay marka maxaa u baahanay marka hore waxaan u baahanahay inaan sameyno new schema maxay noo qabanaysaa inaan soo gelino jadwalkan okay sidee u baahanaa marka waxa u baahan inaan ku dhufano 1 2 3 halkan waxa ku qoran create new schema halkaas aad ku dhufanaysaa kadib schema magaca u bixinayna hadda iska dhaho maadaama aan select maanta practice gareynayno select ya dhaha marka space marka ilaayo wuxuu ku keenaa text gadaashiisa tegada space dhahdo marka waxa u baahan tahay underscore inaad isticmaashid shift waxa isla qabanaysaa minuska kadibna ku qoran doontaa select example camal dhahina okay select example kaas rabnaa ina hadda aan sameeyno waa schemaha meesha aad jadwalka soo gali lahayn kaliya abuurona hadda marka waxa dhaysaa apply kadibna waxa si dhaysaa apply marka le okay finish dhahina hadda kan waa iska xiri kartaa ina abuurna maxaa ku ogaanina listigan noo soo galaa listigan waxaa ku jiro table hore oo aniga hore aan sameeyay Banadr Hospital data cleaning Hayat Market National Electronics asi marka waa kana mid ku dambeeyo naqana kaliyada waxaa sameeynay schema sameeynay maxaa loo sii baahan yahay hadana inaan soo dhex gelino jadwalkeena ama filekeena Excel-ka si soo gelinina red kaliya dhahina kadibna waxaa ka dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay table data import wizard kana ku dhufanaysaa kadib computerkaaga meesha uu ka yaala si tagaysaa file-ka aad rabto ani halkaan u yaala kadibna open as ii dhaho next yaa dhahayna meeshaan aan bal drop table fixates kadibna taga halka saaraysaa next as ii dhahayna meeshaan ku soo bixayso table-kaada wuxuu koomay arki doontaa kadibna next as ii dhahayna kadibna next marka la sii dhahayna kadib uu soo geliyo waa kana kadibna next as ii dhahno ugu dambeyn finish dhahno okay halkaan aan joognaa marka joogno waxa u baahanahay hadana inaan sameeyno meeshii aan query ku qori lahayn ama sidoo kale aan ku practice gareyn ama shaashada aan ku qori lahayn waxa ku dhufanaysaa meeshan ay qoran tahay create new SQL table new SQL tab aadho halkaan zaid u yarta waxdii loo qoro ma la arkaayo marka waxa sameynaysaa inaad qabato control-ka kadibna middle mouse-ka san zoom soo dhahdo halkaas mouse laga dhahaa mouse وانا استعماليsid da mouse isticmaali ma akhaasaa ku zoom gareey kartaa kadib aan computer mouse ku isticmaalaysa soo zoom gareey kartaa control la qabanaysa kadibna middle button-ka mouse-ka hore u riixaysaa ama gaal soo riixaysaa mouse-ka saa zoom kaga soo laabato okay hadda table-kan say ku arkeena halka hadii aan furno select example kan hadii aan furno table-kana ku jiro table-ka marka si furno waxa ku jiro file-keeni Excel-ka ahay marka waxa sameynaynaa ina adeegsano queries laakiin ka hor intaas waxa loo baahan yahay table inuu ku dooran yahay table-ka kan inuu ku dooran schema inuu ku dooran yahay marka double click ku siinaysaa haylada ku fuulay da National Electronics double click ku siinaysaa haylada ii fuula macnaha asiga hadhood ka shaqeyn kara marka waa ina hadda kan double click ku siiyo si aan asaga wax uga dhax sameeyo ama wax u dhax baaro markood maxaa u baahanahay marka waxa u baahanahay table-kan wuxuu ka kooban in aragno horeen waxa u baahan inaan select adeegsano select sidii muhiimta waa dareemi kartaa waa wax query u horeeyo oo u baahan inaad adeegsato marka waxa ina select marka waxaan rabnaa guud ahaan table-ka wuxuu ka kooban inaad ogaatid kadibna all aad dhehaysaa
all saa u dhahdo waxaa u baahan tahay inaa shift iyo isla qabato number 8 si ay kugu soo baxdo calaamadan ku dhufashada ama xidigta kadib enter ask dhahno from halkee rabna inaan kasoo qaadano waxaa rabna inaan kasoo qaadano halkan ay ku qoran tahay select example okay select example aa qoran marka okay kadibni haddii aan rangarayno halkaan kaaga soo baxo waa kana intaa markaa dhahdo sidoo kaleetana waa inaa aa ku dirtaa semicolumka kadib hayladaas arkataa waxaan dhehaysaa execute inta kuu dooraa markaas lagu soo rangarayna hadda waa kana marka jadwalkeeni intuu nooga soo bixi jadwalka oo dhammaystiran maxaa sameyne select yaa dhahne kadibna waxaa dhahne all oo kale in jadwalkaas dhammaantiis iyo soo bixi okay all maxaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa calaamadaas ku dhufashada ama sidoo kaleeto xidigta waxaynu ku taal number 8 shift iyo waxaad la qabanaysaa number 8 kadib ay ku qormi doontaa from halkee laga soo qaadanaa select example oo ahay table magaciisa okay kadibna semicolumka aan dhexeysiinina sidaasaa markii waxa kugu soo baxaysa jadwalkaaga uu kugu soo baxaa okay asxaabe waxaan rabnaa qaabka inaan select u adeegsano waxaan u adeegsan karnaa waxaan ogaan karnaa ardaydan iyo sidoo kaleeto arday walba natiijada uu ku baasay kaliya inaan ogaa karnaa hadda ma u baahnin macnaha waxaa la yaabaa kaliya inaa u baahatidbo labadaas oo aad u baahneen age-ka iyo sidoo kaleeto studentiga sidoo kaleetana waxaa laga yaabaa mar qaar inaa haysatid jadwal aad u dhir badan oo intaasoo kale intaasoo row ka kooban adin aa ka rabtid kaliya inaad ku ogaatid waxyaaba yar oo kooban markaas camal waa soo koobaysaa waxaa dhehaysaa select adigoo adeegsanaayo waxaa kasoo qaadanaysaa kaliya nameka iyo grade-ka si ay ugu soo qaadanaynaa select aa dhahno select all meesha aa ka dhehayne waxaa dooranaynaa labadan shay aa rabna oo kaliya enter iska dheh kadib koo maxaa rabnaa name aa rabnaa okay name san blue day u noqoto waxay ka dhigan tahay SQL-ka waxaa jira waxyaaba asiga u diiwaanka si date-ka oo kale daa u qorno date daa dhahno haddana blue-gay noqoni marka waxaa jiro qaab la wax la sameeyo si loo kala saaro maxaa sameynaynaa marka waxaa sameynaynaa waxaa isticmaalaysaa waxa loo yaqaano identifier quotes ama laba dhibic oo loo yaqaano backticketeska kow waxaa qoraysaa name markaa qorte backticketeska isticmaalaysaa backticketeska inta badan kombiyuutarada ama keyboardka waxay kaga taalaa number 1 calaamada bidix ka xigta waaye marka laba dhinac ka marsiinaysaa backticketeskaas kadibna qoraal kastana isku bedelaa marka isku bedelo kadib waa sii socon kartaa marka halkan waxaa dhahna comma enter aa dhahno kadib maxaa kaloo rabnaa inaan isticmaalo haddana grade-ka grade aa qorina haddana grade okay labadan intee ka soo saaraynaa from waxaa ka soo saaraynaa select example-keeni okay inta hadda haddii aan highlight garayno kadibna aan execute garayno maxaa dhacayo labadii aan soo saaraa ardayga magaciisa iyo natiijadiisa sidoo kaleeto mar qaar waxaa la yaabaa inuu ku shaqey waayo semicolumkaas ka tegin okay hadda maxaa soo saarnay ardayga iyo grade-ka natiijadiisa ayaanoo kaleeto waxay haysataa 85 ardayga ugu badan muxuu yahay hodan oo haysto 95 halkan sidoo kaleeto waxaan soo saari karnaa name-ka iyo age-ka name-ka iyo age-ka sidee u soo saaraynaa markale waxaa dhahaynaa mar walbo select muhiim waayo wax waxay ka bilaabanayaan waa select all ask dhahno marka si aan jadwalka dhan soo saarno kadibna aan wax kaga bedelno select all aa dhahaynaa macnaha mar qaar waxaa la isticmaalaa shortcut koodka maalin kasta inaa qorto waajib ma ahan waxaa isticmaali kartaa inaa intaan soo koobiyastid halkan aa keentid kadib maxaa ka bedelaysaa meeshan all oo kaleeto waxaa laga yaabaa inaa ama calaamada xidigta art inaa ku bedeshid laba shay oo kale ah name iyo age halkan waxaa qoraysaa name si aan yeeshay meeshan blue day noqoto kaleeto waa inaa isticmaashaa backticketeska hore iyo gadaal ka marsiinayo kadibna guduudkaas uu noqon doonaa comma dhahna marka comma waxaa loo dhahay wax kale ma ahan sidoo kaleeto waxaa rabnaa shay kaleeto oo table ku jira inaan isticmaalno markaas column comma inaa isticmaashaa ku khasban tahay age okay ku socono sida ahayd oo yararkeed okay age aa dhahne kadib intaas rabnaa soo bixin intee ka soo bixinayna from select example intaan hore usoo qaadanayba hadda waxaan wax weyn ma sameynin kaliya waxaa sameynay meeshi all waxaa ku bedelnay labadan kala magacooda name iyo age ku bedelnay intaas oo kaliya sameyno ina fahmi kartiin rajayna haddii marka execute dhahno execute waxaa nooga soo baxa name-ka iyo age